السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام يا أرديدا دنانيسا برشدا كورسدا سيسكو ندوك هسن وردع وهرية وقفك دوني إنه ندوك إنجينير نقضو إليتك وهرية وكجلي لها marka koorsadani waxay noo mareysay cashirkeenii ku saabsanaa data transmission inkastoo wixii dhanba data ay wada yihiin imika maanta cashirkanaga wuxuu ku saabsan yahay bandwidth and throughput ayuu ku saabsan yahay. waxaanu baran doonaa datada ayaynu wax ka baran doonaa iyo spaceka datada markaasi ay maartay wax ay ku qaadi karto. marka bandwidthku muxuu yahay imika waxaynu maqalnaa bundle baan iibsanayaa, data bundle baan iibsanayaa, adigoo dhahaya shirkad hebel baan ka iibsanayaa ama maaragtay muxuu ahaa $1 baan data ku iibsanaya iyo $1. bandwidthkaas ayaa datadaas ayaa waxaa la yiraahdaa bandwidth. throughput-kana waa shaygii aad u isticmaali lahayd iyadu ay awoodda u leedahay inay qaado. tusaale waxaa kaaga filan memory-ga space-kiisa intaasi in ka badan hadduu ma qaadi karo 2 GB ama 3 GB ama 8 GB wuxuu yahay ama flashka intaasi in ka badan ma qaadi karo. flash faaruq ah iyo flash buuxo isla barbar dhig. flashka waxa ku jira waa yani data ayaa ku jirta. datada marka yani cadadka space-ka uu yahay ee bandwidth-ka ayaa u saamaxaya inay maartay maxaa la yiraahdaa fixed number inuu ku fadhiisto oo xogta inay gasho. xogtaasna iyadoo qudheedan waa inay noqoto cabir ahaan fixed number, yani number yani go'an ee u dhigma numberka loo ogol yahay inuu space-kaasi galo. internet-kana sidaas oo kale ayuu yahay isagana. marka streaming a movie or playing a multiplayer game requires reliable inaad yani muuqaal Netflix ka daawato ama Fanbroge ka daawato ama meelo kale aad ka daawato ama game aad ciyaarto console gameska waxa la yiraahdaa inaad ciyaarto waxay u baahan tahay internet la isku haleyn karo xawaare fiican leh ayaad u baahan tahay. xawaaraha wuxuu ku xiran yahay bandwidth-ka ayuu xawaaruhu ku xiran yahay. qalinka aan qaato bandwidth-kaas ayuu xawaaruhu ku xiran yahay. marka waxaa loo baahan yahay fast connection ayaa loo baahan yahay. connection oo xawaarihiisu aad u sareeyo ayaa loo baahan yahay. kaas yani wuxuu ka caawinayaa marka connection-kaasi oo yani maxaa la yiraahdaa high bandwidth-ka ah. yani tusaale high bandwidth waxaa loola jeedaa markii uu yahay 100 GB oo kale. markii aad haysato 100 GB internet markaa haysato markaad haysato 100 GB internet oo kale ama 200 GB oo internet ah markaad haysato xawaarihi ku ogolaanayay ayaa la yiraahdaa. marka maxaa kale oo markaasi aan u isticmaali karnaa dadka developerska ah ee maartay raba inay maartay wax ay develop gareeyaan applications inay sameeyaan waxa la yiraahdaa version control ayaa jira. version control maartay tools ayaa jira kuwaas oo loo isticmaalo in maartay applicationada source code-kooda lagu keed gareeyo halkaasi oo ay ku wada kulmaan yani maartay muxuu ahaa developerska ay ku wada kulmaan iyagoo ku abuuraya maartay yani maxaa la yiraahdaa code ku abuuraya. marka waxaa loo baahan yahay high bandwidth loo baahan yahay internet xawaare fiican leh loo baahan yahay. haddii laakiin uu yahay internet markaasi 10 GB oo uu yahay waxa uu matarayo internet 10 GB markuu yahay waxba ma tarayo markaas oo wax ku hayn karaya oo saas ku hayn kara yani bil ma noqon karo. inkastoo kan caadiga semi-card-ka aad isticmaalayso uu ku hayn karayo oo aad waxyaabaha kale ee baahiyada basic-gali aad u isticmaalayso uu ku hayn karo. laakiin mid shaqo markay tahay ama inaad muuqaalo ku daawato ama inaad muuqaalo ku upload gareyso ama inaad developer aad tahay aad team aad maaragtay yani version control platforms-kaas aad ku wada midaysan tihiin koox ahaan ma suurtagelayso. okay networks-kaas marka waxay u baahan yihiin marka waxay u baahan yihiin inay awood u leeyihiin marka inay wax ku gudbin karaan
inay wax gudbin karaan, transmitting ay samayn karaan, sidoo kalena receiving ay haleeli karaan bits inay haleeli karaan. Marka bitska muxuu yahay? Bitskaas waa 8 digits waa 8 digits. So marka smallest information waaye oo maaragtay waa smallest information oo ka kooban 0 iyo 1. bitkan waxaa laga soo gaabiyey binary digits ayaa laga soo gaabiyey. marka bitkan ayaa wuxuu ka kooban yahay isaga dhanba waxa waaye waa 0 iyo 1. waxa kaliya daatada oo dhan ay tahayba wuxuu ka soo bilaabanaya basically waa 0 iyo 1 kaas uu ka soo bilaabanaya. marka kaasa bit la yiraahdaa. kadib wuxuu isku bedelayaa bytes ayuu isku bedelayaa, sida halkaan aynu ka arki doono. bytes ayuu markii dambe isku bedeli doonaa. byte-ka marka muxuu noqonayaa isagu 8 bits ayuu noqonayaa. byte-kii ayaa wuxuu noqon doonaa 8 bits ayuu noqon doonaa. bitkii waxaan soo sheegnay inuu yahay yani maxaa la yiraahdaa 0 iyo 1 inuu yahay, binary digit inuu yahay oo 0 iyo 1 ah. marka sidaad halkaan ka arkaysa marka 8 bits ayuu isku bedelayaa. okay, waxaan iska qaaday shaashada. marka muxuu sameynayaa? marka wuxuu u baahan yahay very high rate of speed, ama waxa speed buu u baahan yahay, data oo maaragtay high bandwidth ayuu markaas u baahnaanayaa. okay, waxaa jira marka different physical medium ayaa jira, fiilooyin ayaa jira, kuwaasoo maaragtay midna waxay xambaaraysaa 10 megabyte ayay xambaaraysaa, midna waxay xambaaraysaa 100 megabyte ayay wax ku dirtaa, midna waxay wax ku diraysaa 1000 megabyte ayay wax ku diraysaa, 1000 megabyte ayay midna wax ku diraysaa. marka waa yani fiilooyinka hadba siday u kala duwan yihiin. waxa ugu sareeya fiilooyinkana waa fiber optic ayaa ugu sareeyo. fiber optigaas ayaa ah kan GB wax ku dira, qaar MB wax ku dirayaan. marka fiber optiga ayaa ah midka ugu sareeya data cadad weyn ilbiriqsi ku diri kara. waa internetka imika dunida laga isticmaalo. marka waxay ku saamaxayaan marka fiber optigaas oo kale wuxuu ku saamaxayaa inaad gudbiso the transfer, gudbinta of bits. waxaad gudbinaysaa marka bitskii ayaad gudbinaysaa oo bytes noqon doono. byte goormay noqon karaan? byte waxay noqon karaan shayga anaga markaan isticmaalno oo aan access u sameyno ayuu byte noqon karaa. micnuhu wuxuu yani markuu helo yani xogtiisii si dhameystiran inuu helo, qofkii IP addresskiisii, yoolka sourcigii, yani maadaama xog la dirayo waxaa loo baahan yahay bytes ayaa loo baahan yahay. sidoo kale waxaa loo baahan yahay source IP address ayaa loo baahan yahay. sida yani maaragtay maxaa la yiraahdaa sidaas bay waxay ku noqon doontaa marka maaragtay yani bits ayay noqon doontaa. yani qofkii wuxuu awood u leeyahay markaasi inuu markaasi wax diri karo ayuu awood u leeyahay. marka bitkan waa binary digits, waa luqadda maaragtay shay walba ee koronto ku shaqeynaya luqadda ay ku waramaan ayaa bit la yiraahdaa. marka xawaaruhuna wuu kala duwanaan karaa. xawaaruhu waa kala duwanaan karaa. sida imika shirkadaha siday ku bixiyaan internetka, qaar baa waxay bixiyaan internet $60 ah, qaar baa internet maaragtay maxaa la yiraahdaa $30 ah bixin. marka rate of data transfer of bits is usually discussed in terms of, inta badan marka waxaa lagu falanqeeyaa marka laga waramayo data iyo xawaaraheeda iyo waxaas marka laga waramayo waxaa lagu falanqeeyaa labadaas lagu falanqeeyaa ee ah bandwidth and throughput ayaa lagu falanqeeyaa. marka bandwidth muxuu yahay? waa
marka waxay ku saamixaysaa marka capacity waa capacity ama cuf waa shay yar waa marka capacity marka lagu leeyahay waa cuf space wax qaadi kara okay of a medium a fiilo ama yani ama shay oo fiilo ah to carry out ay ku xambaari karto data xog ay ku qaadi karto marka yani maxaa la yiraahdaa ama space wuxuu noqon karaa yani memory ama space wuxuu noqon karaa maaragtay wuxuu noqon karaa waa shay walbo adiga wax galayo oo yani digital ah wax galayo ayuu noqonayaa marka digital bandwidth marka waxa lagu cabiraa iyaga amount of data waynu arki doonaa halkaan aan ku kala saari doonaa dadkaasoo can flow wuxuu ka imaan karaa marka ama wuxuu sameynayaa waxa la yiraahdo flooding ayuu sameynayaa yani wuu qulqulayaa wuxuu ka soo qulqulayaa meel ayuu ka soo qulqulayaa wuxuu u qulqulayaa meel kale ayuu u qulqulayaa sorry qalinka iga waxaysmay meel ayuu ka qulqulayaa meel kale ayuu u qulqulayaa marka sida aynu ku arki doono switchka iyo maartay cashirada yani network components ka warramayo okay waxa kale uu ku siinayaa marka amount of time ayuu ku soconayaa marka amount of time marka la leeyahay waa layerka la yiraahdo TCP la yiraahdo yani transmission control protocol kaasoo lagu talagalay yani inuu xambaaro xogta inuu xambaaro isagoo ku cabiraya amount yani isagoo ku cabiraya daatada maartay inta isagoo gudbin karo iyo inta saac ay socon karto daatadaas isagoo wax ku cabirayo yani waanu aragnaa markii maartay maxaa la yiraahdaa muuqaal aynu daawanayno wuxuu sameynayaa muuqaalka wax yar uu istaagayaa waxaad arkaysaa shay cad oo big dhahayaad arkaysaa shaygaas cad ee sii socdo waxaa la yiraahdaa buffer wuxuu sameynayaa micnuhu showr buu sameynayaa wuu la showrayaa anigu intaan miyaan kari karaa inaan gudbiyo ayuu leeyahay haad waad gudbin kartaa maaragtay maxaa la yiraahdaa wuxuu su'aalayaa serverkaasi ayuu su'aalayaa maaragtay YouTube-ka ayuu su'aalayaa intaas miyaan ku gudbin karaa intaas awoodi karaa uu leeyahay marka layerka maaragtay TCP-ga intaasaan anigu awoodi karaa markii uu aqbalo inta uu awoodi karo isagaasna rally uu ka noqdo ayuu isaga soo gudbinaya marka bufferkaas marka waxa sababayo waxa waaye waa showr u dhaxeeya yani maxaa la yiraahdaa yani serverka iyo maaragtay iyo TCP-ga u dhaxeeya waa wala showraya marka waa cajiib okay bandwidthka marka is typically measured waxa lagu cabiraa isaga gabigiisa waxa lagu cabiraaba number of bits ayaa lagu cabiraa dadkaasoo theoretically hab fikir ahaan can be sent la diri karo across waxa lagu dirayaa marka the medium fiilada lagu dirayaa medium waa fiilo ama media fiilooyinka ama wireless ha ahaado ama wire ha ahaato ayaa lagu dirayaa marka in a second yani wax second ah ayaa lagu dirayaa halkan sida kaaga muuqata marka waxa soo socdo cabirka bandwidth-yada ee noocyada markaas ay u kala baxaan ayaa halkan yani maxaa la yiraahdaa kaaga muuqata okay halkan waxaynu ku aragnaa thousands of bits bit waa soo aragnay waa bit waa binary digits wuxuu ka kooban yahay 0 iyo 1 ayuu ka kooban yahay waynu soo aragnay halkan waa thousands of bits waxay u dhigantaa thousands of bits waa amount of data datada halkan maxaa lagu yiri bandwidthka waa capacity waa lagu yiri wuxuu ka kooban yahay data amount iyo wuxuu ka kooban yahay iyo time amount iyo ka kooban yahay warkaas yuusan ka hoos bixin imtixaankaas maaragtay network-ga ma u maleynayo jaamacadaha in yani Cisco network essential 2.0 versionkaas in lagu dhigo ma u maleynayo arday kasta waayo ardayga wuxuu ka caawinayaa markan inuu maaragtay yani uu noqdo arday yani career life samaysta oo uu ardayga intuu jaamacadda dhiganayo dhaho anigu markaan jaamacadeeda ka baxo sidaas baan rabaa entry level jobskana inuu gali karo inkastoo wadanka aan wax entry level job aanay lahayn okay thousands of bits marka yani kumanaan kun oo bits ah ayuu ka kooban yahay kumanaankaas kun ee bitska marka
marka TCP-ga uu shoreka sameynayo wuxuu wax ku dirayaa fiiladu waxay wax ku gudbinaysaa marka maartay per second ay wax ku gudbinaysaa per second ay wax ku gudbinaysaa waa amount of time waa hawl ku shaqo leeyahay gudbinteedu waxa ku shaqo leh TCP-ga ku shaqo leh transmission control protocol layers kan ku arki doonaa OSI layers ka aynu ku arki doonaa okay waxyaabaan ka tiro shaashada marka sidaad ka arkayso waxa kale oo ku xiga midka aan u naqaano kaas waxaynu u garanaynaa KBBs ayaynu u garanaynaa midka kale ay ku xiga waxa la yiraahdaa million of bits wuxuu ka kooban yahay million of bits ayuu ka kooban yahay yani marka per second ayuuna wax ku dirayaa per seconds ayuu wax ku dirayaa marka fiiladaas yani fiilooyinka kuwa aanu isticmaalnaa kamid oo maaragtay RJ45 iyo waxyaabaas ayaa kamid ah laakiin ima yani billions of bits midkan wax ku dirayo waa fiber optic waaye fiilo kale uu qaato ma jirto isagu cadadkeedu waa GB uu ka kacaa GB na waa maaragtay waa xawaaraha ugu weyn waa xawaaraha yani maxaa la yiraahdaa ka yar maaragtay terabyte-ka waxaa jiro TBBS ayaa jira terabyte ayaa jira adduunka wili kama aanay bilaawanin baan moodayaa wali xawaaraha noocaas ah adduunka kama bilaawanin waana maaragtay waana rajaynaynaa in adduunyadu maaragtay xawaaraha noocaas ah inuu imaan doono internet TBB ku kacaya iminka GB la maraya okay marka physical media properties-ka maxay yihiin iyagu waa kuwana sida halkan aad ka aragto kan ma sharaxayo waad fahmaysaa shaxdu sida ka muuqata hada halkan waxa kaaga muuqda unit of bandwidth waxa laga soo gaabiyay iyo mid kastaba midka yani tira ahaan marka la isku dhufto tirada uu keenayo iyo tirada u dhigmo terabyte-ka aan soo sheegay waa kana wuxuu u dhigmaa 1 million oo maartay oo bits ayuu wuxuu u dhigmaa يعني بلايين oo wuxuu dhigmaa marka oo maartay maxaa la yiraahdaa mega yani oo waxa GBs ayuu dhigmaa okay 1 million oo GB ayuu dhigmaa ma warka waa 10 GB oo maartay 10 GB oo 12 jibaar lagu sameeyay 10 except 2 alif ayaa halkan saaran oo maartay 2 jibaar lagu sameeyay okay throughput ka muxuu yahay marka imika waxaynu soo galnay throughput ayaynu soo galnay marka aad YouTube ka soo gasho daatada internet telefonka kugu jirta ma aragtaa daatadaadu iyadoo isla markii aad muuqaalka daawatay iyadoo go'aysa maxaa keenaya inay go'do internetka maaragtay kasta yar ee aad ka iibsato shirkadaha internetka bixiya maxaa keenaya waxa waaye يعني throughput weelkii shayga ku jiray ma saamaxayo weelkaaga shaygan ku jiro inay isqaataan waay marka warku saas uu noqonaya af Soomaaliga qurxan waa kaas dadku ma kala cirweyn yihiin way kala cirweyn yihiin dadku ay kala hunguricun badan yihiin saaxiibkaad ogtahay hungurigiisa uu cunayo waad ka fiigaysa marmarka qaarkii adigoo arkaya like that sidaas oo kala waaye meeshana marka throughput-ka waa wixii marka keed ahaan uu meesha ugu jiray iyo adiga keedkaaga waxaan aad rabtid inaad ku fiirsatid keedka adiga haysid sanduuqan kugu jira sanduuqana keedka ku jira de isma laha waxa laga doonayaa marka waxa waaye yani size lamida keedka halkan ku jira ka weyn ayaa loo baahan yahay waliba marka kan baa la yiraahdaa throughput ayaa la yiraahdaa laakiin bandwidth-ka marka throughput marka waa is the measure wa cabirka of the transfer of bits yani over given period time yani waqti kooban buu kan isaga period of time ayuu ku eg yahay wuxuu gudbinayaa yani transfer of bits ayaa la gudbinayaa iyadoo la isticmaalayo media wireless-ka iyadoo la isticmaalayo okay wuxuu ku gudbinayaa marka waqti kooban ayuu ku gudbinayaa micnuhu cadadka daatada kugu jiray marka
si kastoo ay ahaataba isagu number of factors iyo waxyaabo eegaya waa taan soo sheegay spacekaagu eegaya macno okay wuxuu kaloo eegayaa the amount of data being sent and received over the connection yani history waa yani markan waa historia yani taariikh buu sameynayaa oo dib u eegis buu ku sameynayaa cadadka daatada markaas la diray adna waad dareemi kartaa okay the types of data being transmitted noocyada daatada markaas la gudbiyay ma MB ba ma KBB ba ma GB ba ma terabyte ba imika waxaynu aragnaa hadiskayaasha qaarkood waa terabytes ayaynu aragnaa markaynu galno inkastoo aysan waxba ka khuseynin Cisco yani aanay ka khuseynin laakiin yani markaad baranayso Compati iyo Ebalas waad ku arki doontaa waliba si faahfaahsan aad ugu arki doontaa memoryada maartay iyo memoryada maartay computerka iyo waxyaabahaas oo dhan marka laga waramayo iyo flashada iyo waxyaabahaas marka laga waramayo marka waa yani capacity shay leh ee wax qaadi kara marka laga waramayo waayo soo marka imika anigu internet baynu ka warameynaa iyo sida yani maartay daatada inuu u iibsano maalin walbana maartay inuu iibsano hadba maartay dhalinyarada shukaansiga habeenkii ayagu ku jira ee ka go'ay balka latency yani markuu sameynayo dib u dhaca markuu sameynayo latency-gan wuxuu dib u dhac u sameynayo waxa waaye waa tan soo sheegnay showr baa dhacaya showrkan waxyaabo badan buu sameynayaa waxa kamid ah showrkan throughput-ka waxaan meeshan ku jiraan horta miyay isqaadan karaan miyuu qaadi karaa shaygan kale ee boxkan kale ku jiro miyuu qaadi karaa okay shaygan boxkan ku jira xagee laga soo diray yaa soo diray waxyaabahaas dhan isweydiinaya destination-ka uu socdo waa xagee soo marka yani device-ka ayaa su'aalahaas dhan isweydiinaya device-ka ayaa su'aalahaasi isweydiinaya marka wuxuu weydiinayaa source-ga waa kee oo soo diray kan destination-ka waa kee marka tusaale imika waxaynu ka soo qaadeynaa waxaan oo dhan aan iska qalinka aan iska tirtiro sawirka foolxumadiisa hal ayaabina okay imika halkan waa YouTube tusaale YouTube ka soo gashay YouTube ka wuxuu ku xiran yahay server kamid ah maartay maxaa la yiraahdaa server maartay wuxuu ku xiran yahay maartay global internet-ka qayb ka degan ayuu ku xiran yahay marka YouTube ka halkaas ayuu wuxuu ka haystaa domain server ayuu ka haystaa domain server kaasi uu ka haysto YouTube ka wuxuu leeyahay IP address buu leeyahay IP address-ka iyo domain name-ka way israacsan yihiin YouTube ayaana la yiraahdaa domain name-kiisa IP address buu leeyahay oo yani maxaa la yiraahdaa nooc doona aan noqdo maartay 10.0.010 waxaas ama ha noqdo ama 1 yani maartay adba classes-ka IP address-ada ay yihiin nooc doona ha noqdoba 192.168.saas ha noqdo marka adiga marka halkan baad joogtaa telephone baad haysataa telefonkaaga wuxuu ku xiran yahay wireless-ka ayuu ku xiran yahay guriga kugu xiran wireless-ka marka wuxuu participation marka yani waxa idin dhaxeeyo halkan tusaale maartay tower iska dheh halkan marka waa tower oo kale waxa idin dhaxeeyo marka midkan marka serverka wuxuu ku xiran yahay global internet-ka ku xiran yahay yani kana maartay adigu shirkadda ayaad internet ka heshay shirkaddan waxay ku sii xiran tahay global internet ay ku xiran tahay marka destination-ka loo marayo u eeg fiiri destination-ka yani wadada loo marayo fiiri okay adigu marka waxaad garaacday yani waxaad garaacday maartay yani maxaa la yiraahdaa waxaad garaacday domain name-kii ayaad booqatay application layer ayaa la yiraahdaa yani waa hierarchy of the maartay OSI layerska qaab dhismeedka structural qaab dhismeedkii dhan network-ga waa uu ku dhisnaa network ma shaqeynayo qaab dhismeedkaas oo hab yani hanaan protocol asoo marin ma kacayo network-ga hanaankaas protocol-ka marka application layer baa ku jira process-kaas dheer markuu soo maro oo internet-kayga uu ii kacsan yahay wireless-kayga kaale arag uu yahay oo cirkaas marayo ayaan anigu YouTube-ka rabaa inaan soo fadhiisto YouTube-kii baan garaacay browser-kii baan tagay YouTube baan garaacay markaan garaacay waxaan dalaq soo dhahay YouTube-kii aan dalaq soo dhahay saan soo socday dalaq halkaas baa dalaq soo dhahay waa soo galay markaan dalaq soo dhahay aan soo galay isla markii waa la aqoonsaday waxaa la aqoonsanayaa
يعني intaan horta aqoonsiga iyo waxaas oo dhan intaan u dhicin su'aal baa imaanaysa waa la is su'aalaya yuu ahaa qofka halkan soo galay albaab baa xiran Soomaa albaab xiran baad garaacaysaa YouTube ka albaab xiran baad garaacaysaa markaad booqanayso maxaa la yiraahdaa domain kan YouTube ka markaad booqanayso ilaan server internet ka kamid uu ku xiran yahay albaabkaas aad garaacday dabeetana waa laga furay adoo kaarkii wata anigu hebelkaas baa ahay this is the source-gii waa marka source-gu wuxuu wataa magacii wuxuu wataa magacii wireless-ka wataa magacii shirkadda bixinaysay ayuu wataa IP address-ka shirkadda IP address-kiisii telefonka ayuu wataa iyo kii kale wireless-ka wataa wixii oo dhan maxaa u socotaa la leeyahay waxaan u socdaa inaan muuqaalo daawado markaasuu CJ bar intuu ku tago ayuu wuxuu ku qorayaa muuqaal hebel baa raba inaan kacsado sheekadaas oo aad mu macaa okay waad fahmaysaa u maleynaya marka waa kaasa sidaas ayuu maartay internetka isugu xirxiran yahay gabigiisaba okay latency maxaa loo tixraacaya marka latency waxaa loo tixraacaya reverse to waxaa loo tixraacaya amount cadadka of time waqtiga includes waxaa ku jira marka delays dib u dhacyada waynu aragnaa tusaale telefonka markaad qofka ka wacayso isla markii duud isla markii ma dhaxayo xoogaa yar kadib ayuu yani kacaya signalkii ayaa kacaya war signalka mar hore uu isqabsaday signalka telefonka mar hore uu isqabsaday jaha hadda markuu dhaxdan soo mareeyay dhaxda markuu soo mareeyay intaan oo dhan waa duuduleynaya mugta dhaxda markuu soo mareeyay tusaale telefonkaaga halkan telefon ba halkan yaala halkana telefon kale yaala laba qof ay iswacaysa marka qofkan wuxuu wacayaa qofka halkan le waxa u dhaxeeya marka maxaa leeyahay amount of time ayay ku qaadataa latency dhacay latency-gan telecommunication aan isla aadnamiya isgaarsiinta maaha isgaarsiinta iyo network waa isla socdaa mar walba ma kala harayaan telecommunication-ku wuu la socdaa network wuu la socdaa ma kala harayaan labadooda marka yani maxaa yiraahdaa wuxuu sameynayaa dib u dhac uu sameynayaa delay markuu sameeyo delay muxuu sameynayaa short baa dhacaya qofka kani la wacay waa qofba server u dhaxeeyo yani shirkadan hormuud imika server ay leedahay oo kale ayaa u dhaxeeyo serverkaas wuxuu sameynayaa serverkan waxa ku jira marka list of numbers yani serverkan wuxuu leeyahay domain ayuu leeyahay domain website domain ayuu leeyahay website domain kaas waxa ku xiran virtual storage buu leeyahay virtual storage kaas waxa ku jira nambarada magaca iyo xogta dhan ee macaamiisha shirkadda isticmaalaysa ku jirta okay si toos ah marka qofkan uu soo waca qofkan waxa loo baahan yahay uu socda qofkan uu wacaya million of numbers ku jira marka meesha yaa loo socdaa isla markii wuxuu yani tagging uu sameynaya ama yani waxa yani tagging uu sameynaya isaga dooranaya marka serverka ayaa xulayo dabeetana way si gudbaysaa TCP-ga iyo wixii oo dhan baa bilaawanaya yani intee baan awoodi karaa yani qofkan data intee buu wataa iyo su'aalahaas baa imaanaya marka throughput-ki iyo bandwidth-ki waay meeqa sintii ugu jirta waxyaabahaas baa imaanaya waxa kale oo imaanayo yani maxaa la yiraahdaa qofkan kale imise sintii baa ugu jirta isagana ayaa imaanayso daqiiqadaha markaasi ay hadli karaan ayaa haddana la jaangoynaya the amount of time isla markii ma ahan daqiiqadaha waxa jaangoynaya ma ahan iyaga hadalkooda ma waxa jaangoynaya waa serverka waxa jaangoynayo waa TCP-ga layerka TCP la yiraahdo ayaa jaangoynaya yani hadma yani meeshaas markay soo gaarto wuu go'aya hadii oo maartay daqiiqadii waxa markii hadii waana ciil adoo shukwaansi ku jira haduu ka go'o marka waa kaasa tusaalaha ugu dhow waa kaasa marka delayga wuxuu ku dhacay waxa waaye waa la israadsanaya labadii qof baa israadsanaysa qofkan wuxuu raadinayaa qofkan xogtiisa ayaa qofkan yani wuu hayaa xogti laakiin yani intermediary device ka u dhaxeeyay xogta ma haya wuu hayaa laakiin waxa loo baahan yahay xogo badan oo haya waxa loo baahan yahay laakiin kan loo socdo hadda destination ka waa kee ayaa loo baahan yahay latency-ga marka kaasa keenaya marka for data travel datada waxay ka soo duulaysaa meel bay ka soo duulaysaa marka waxay u duulaysaa meel kale goob kale u duulaysaa waa ku raaxaysa cashirka marka aynu sii wadno measurement of maartay throughput measurement-ga do not take into accountable validity of usefulness yani of the bits isagu shaqo marka sida halkan ka muuqata isagu throughput
markuu xisaabayo daatada noocay tahay iyo maxaa loo gudbinayaa waxaas oo dhan bitkeeda muxuu yahay markuu xisaabayo wuxuu eegayaa oo kaliya adigu totalka meeqa haysataa oo ku eegaya anigu tiro iyo hal shay aan kugu xisaabo ma aha anigu muuqaalka yani maxaa la yiraahdaa sir yani storage-kayga muuqaalka ku jira youtube wuxuu ku leeyahay storage-kayga muuqaalka ku jira waa intaas GB adiga meeqa GB haysataa oo ku leeyahay laakiin ma ku dhahayo meeqa bida haysataa bid hawsha ma kaaga soo bilaabayo waa bid hadduu ka soo bilaabayo waa shaqo dheer adiga dulqaadka intuu ka dhamaan lahaa telefonka iska jibin lahaa okay alxamdulillah dunida maanta yani ma u baahna maaragtay meeshii maaragtay waraaqada waxaa la isku qaadi jiray way dhaaftay marka waa nicmada ilaahay subhanahu wa ta'ala waay marka many messages received through the network are not destined for specific user applications yani looma gaar yeelin fariimooyin badan ee la dirayo looma gaar yeelin maaragtay maxaa la yiraahdaa goob gaar ah markaasi ee destination ah looma gaar yeelin ma fahantay marka maxaa loola jeedaa micnuhu waxaa loola jeedaa throughputka maadaama aynu ku jirno throughputka ma leeyahay wax destination ah throughputku destination wuxuu lahaan karaa markaad adiga booqato ayuu destination lahaan karaa destination maxaa waaye ciddii markaas oo shayga loo waday ayaa destination la dhahaa source waxaa la dhahaa ciddii markaas shayga waday ayaa source la dhahaa source waa youtube-ka destination-ka adaa noqonaysid marka hadda destination-ka isaga miska sameysanayo marnaba iskama sameysanayo ilaa waa in la helo source in la helo source haddii la waayo destination ma dhici karo destination sababtoo ah yaa dirayo in la isweydiiyo waayo yaa diraya yaa loo dirayo waa marka warka okay yaa daawanayo youtube-ka muuqaalkiisa waayo yaa youtube-kana yuu usoo geliyay su-aasha taagana waa taas marka waxyaabahaas oo dhan in la su'aalaa fiican warku waa saas okay markaynu joogno internet wega markaynu joogno waa routerska an internet weg magaca kale ee router haddii aad maqasho waa ninkan internet weg baa la yiraahdaa waa routerku waa aabihii dhan ee internet aabihii dhan ee network waayo network ma dhici lahayn haddii aan router jirin routerka wuxuu isku xiraa routerka wuxuu wax ka dhigaa macnaa laba qalab ayuu internet laba qalab uu network ka dhaliyaa wuxuu u saamaxayaa dadka meelahaas joogana inay isticmaalaan buu u saamaxayaa oo ay wada hadlaan baaskii wada hadalkii iyo wixii oo dhan jidkii la mari lahaa ayaa internet la dhahaa marka jidkii oo wadadii la mari lahaa ayaa internet la dhahaa baaskii waa soo ma garan saas u faham routerku waa internet wagi network waa device-kii internetna waa jidkii la mari lahaa okay multiple segments macnaha yani a lot of wuxuu leeyahay number of wuxuu leeyahay networks ayuu leeyahay haddii subnet maskigaas haddii maaragtay subnetskaas ama subnetka haddii uu kala duwan yahay ma awoodi karaysid in yani maaragtay wax aad dirtid waa kana sida halkan ka muuqanaysa lama aqoonsan karayo yani kan wax soo diray kii diri lahaa iyo waxaas oo dhan mana awoodi karaanba inay wax isku diraan ilaa la helo the same segment in la helo yani kuwa isku mid ah ilaa laga helo sidoo kale waxaa la mid speedka la mid ah xawaaraha la mid ah xawaaraha waynu aragnaa meelaha qaarkood encryption inuu jiro encrypted inay yihiin xoogahooda iyo waxyaabahaas oo dhan dadka cyber security-ga yaqaana garanayo yani in yani maxaa la yiraahdaa aanad booqan kareynin waxa oo dhan ay qufulan yihiin soo ma garanin marka hawshaas ma galayo hadda waa ka gudbayaa wuxuu leeyahay there are many speed tests ayaa jira tusaale imika tusaalahan u bixin doonaa xawaaraha internetka qaab loo ogaado ayaa jira xawaaruhu wuxuu leeyahay marka waxa la yiraahdo upload iyo waxyaabo badan baynu ka arki doonaa iyo halkan maaragtay tusaalaha aan idinku tusin doono ase practical ahaan ayaan idinku tusin doonaa there are waxaa jira ayuu leeyahay many online speed tests ayaa jira tools lagu talagalay in speed test ay sameeyaan kuwaasoo soo saaraya reveal ku sameynaya the throughput of the internet connection ayay ku sameynayaan okay waxaynu booqan doonaa
waxaan rabnaa inaan ogaano xawaaraha internetka imika hadda aniga waxaan isticmaalayo hormuud waaye. Okay, waanu ka arki doonaaba sidaan hadda soo sheegay waa aqoonsanayaa speedtest.com. sida halkan aad ka arkayso website-kaas aad booqanaysaa google speedtest ku qor dabeetana speedtest.net ayuu ku geynayaa. maxaa halkan kaaga muuqda the global brand broadband speed test xawaaraha lagu xisaabayaa adeer. browserkayga waa too much lagging waxaa ku badan storagekiisa weli cachekiisa iyo waxyaabahaas oo dhan wuxuu u baahan yahay in la tirtiro oo isaga dhan maaragtay la hagaajiyo rabaa. marka laggingkaas uu iska jiraa computerkaagana waa ka dhacaa laggingka culeyska. wow, too much lagging. xawaaraha internetka oo igu liitama waa lagging oo browserka ka jiro. browserka is adkeynayo culeysa waayo data xoog badan baa ku jirta. hadduu browserkaaga lacala sidaan uu noqdo iska tirtir isagoo dhan dib u reset garay oo waxa ku jiro dhan tirtir, laakiin wax muhiim baa ugu jira imika aanu tirtiri karaynin. still lagging uu sameynaya. hadda ka horna waa la jabsaday Chrome haddii aad ka warhaysaan shirkadda Chrome hadda ka hor la jabsaday. marka laggingkaas waa iska jira sida maaragtay waqtigii la jabsaday ilaa hadda xoogaa maaragtay performance quality ayaa dhintay. tuug markuu ku soo galo waa waxa tuug markuu ku soo galo yani ku reewayo wax maaragtay uu ka wasaqeynaya meesha. still lagging browser lagging ayaa socda. waa muhiim inaynu aragno yani throughputka iyo bandwidthka. okay, internetka imika aynu isticmaalayno oo soo qabtay ilaa iyo wuxuu soo qabtay IP addresska shirkadda hormuud ay leedahay ayuu soo qabtay waa 197.2.0. yani 84.1 ayuu soo qabtay. okay, marka waa hormuud IP internetka aynu isticmaalayno. ISP waa hormuud waa muqdisho meesha. okay, janji server buu leeyahay lama baana waxaas anigu shaqo kuma leeyahay. okay, iska tirtirkan. okay, waxaan u baahanahay inaan speedkeena ogaano. go test speed. okay, wuxuu raadinayaa speedki xawaari ayuu raadinayaa. ereygan bin meesha ku qoran waynu arki doonaa waa troubleshooting marka la isticmaalayo network troubleshooting toolska marka la isticmaalayo ayaa lagu verify gareeyaa yani IP address. wuxuu pingin ku sameynayaa ama uu verification ku sameynayaa IP addresskan ayuu baarayaa micnuu ay hormuud leedahay. soo marka IP addresska qudhiisa waxaa ku lamaanan kan anigu isticmaalayo ayaa ku lamaanan ee ah midkan default gateway-ga ayaa ku lamaanan. wuxuu leeyahay firewall could be blocking the connection. okay, wuxuu leeyahay waa xayeysiin wey xayeysiin bay wadaan. wuu soo celiyay wuu soo diiday. waxay leeyihiin yani desktop isagoo ah soo degso firewall baa block gareeyay. socket error baa jira ayuu leeyahay. anigu socket error maxaa naga galay firewallkooda iyaga u taala. firewallka ayaa socket error ka jira waa inaad isticmaashadeen dheheen speed testiga. socketka waxaa laga wadaa baalka yar oo maaragtay RJ45 ka baa yani ku xirmaya ee telefoonada baalka wata. socketska waa inuu arki doonaa iyagana. okay, waa inaan dib ugu noqono oo aan dib u baarno. mid kale aan galaynaa haddii kan uu diiday mid la yiraahdo fast.com. sida halkan waxaynu ku jirnaa browserka
waxaad booqan haddii kii hore uu diiday waa inaad fast speed garaacdo waxaad ogaanaysaa xawaaraha internetkaaga ayuu kusoo saaraya marka waa websitekaas qaybta hore ee saaran ayaad booqanaysaa. okay isagaan tagi doonaa waanu ku dhufanaynaa waa booqanaynaa si aan u ogaano xawaaraha naga ee internetka. login kan waa jira login kan waa browserka loginka waxa sameynaya waa browserka. markaan dib hadduu usoo celi waa iska bedelaynaa. waxaad aragtaa halkan bandwidth ayaad ujeedaa oo kbbs ah way isbedeli doontaa waxaa laga rabaa mbbs ayay isku bedeli doontaa. sida aad ka aragto show more information aan dhehayna sida halkan inuu ka aragno waxaa ka muuqda yani wuxuu wax ku diri karo milliseconds-ka 174 millisecond yani latency-ga ayuu ka waramayaa. wuxuu load gareynayay ilaa iyo 214 xawaarahana markaasi wax ku raadinaya kan waa 510 kbbs waayo. marka sidoo kale wuxuu leeyahay IP addresska shirkadda Hormuud buu ku tilmaamayaa waa kana serverkan yani London in laga leeyahay uu sheegayaa yani internetkan u xiran shirkadda inay yahay medium kiisa inuu yahay bandwidth capacity giisa inuu yahay GB inuu yahay ayuu sheegayaa waa internetka Hormuud GB inuu yahay ayuu sheegayaa yani maaragtay inuu yahay kii fiber optic ayuu sheegayaa. waxyaabahan oo dhan maaragtay speedka qaabkan lagu baaraa speedka internetkuna 9.1 MB waay waa internetka caadiga ee ADSL pluska. marka waad ku ogaan kartaa iyo kan laftaba intaba adigoo booqanayo websitekaas adigoo booqanayo ayaad ka raadin kartaa fasti yani speed.com. cashirkeena maanta halkan ayaan ku gabagabeynaynaa intaynu dib cashirka yani iyo maalinta 6aad ee inoo xigta waxaynu ka warrami doonaa peer to peer network. waxaan idinku dhaafayaa ismaqal dambe oo xiiso leh sidaas nabadgelyo.